halkan waa horyaalka shacabka youtube-ka aniguna waa Abduqaadir Xasan Aduuliye is arag wanaagsan maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa haddii ay kugu adag tahay shahaadada BINS-ka oo aan jeclahay in dad badan ay hamigoodu yahay in ay diyaariyaan si ay sharci ugu qaataan ama fursado kale oo shaqo ugu sameystaan shahaadada BINS-ka qaabka imtixaankeeda loo galo fursado badan oo aad haysatid adigoo marba qayb imtixaankeeda gali kara haddaba fursado badan ayaan ku hayaa haddii aad dareynaysid oo Jarmalka aad joogtid shahaadada BINS-ka inaad qaadatid muuqaalkan waa muuqaalkaagi marka ugu horeysa waxaan ku leeyahay haddii aad joogtid wadanka Jarmalka fursad ayay ku tahay in aad mar walba aad ku taxnaatid bartida YouTube-ka horyaalka shacabka YouTube-ka subscribe gare haddii aad horey u tirina waa okay laakiin hadda haday tamarka ugu horeysay subscribe noo saar YouTube-ka si muuqaalada kala duwan ee markaa bulshada Jarmalka jooga aan uga faa'iideyno aad markaa u daawatid shahaadada BINS-ta fursado badan ayaa markaasi ku furan oo aad sameyn kartaa oo aad heli kartaa haddii aad haysatid shahaadadaas kow waxaa ka mid ah sharciga weyn in shahaadadaas aad ku xareysan kartid haddaadan shahaadada BINS-ka aad haysan sharciga weyn ma xareysan kartid waa qasab in aad shahaadada BINS-ka aad haysatid sidoo kale haddii ay noqoto shaqo waxaad sameyn kartaa waxay tahay haddii aad haysatid BINS-ka shaqooyin ayaa markaasi heli kartaa oo markaasi lacag fiican aad ku shaqeynaysaa sidoo kale haddii la fiiriyo Forbildung ama seminaaro ayaa jira oo dadka shahaadada BINS-ka ay fursad u helaan in ay markaas seminaaradaas qaataan si ay u noqoto xirfad ay markaa ku shaqeystaan horta imtixaanka BINS-ka laba nooc ayaa imtixaankaas horta uu ka kooban yahay mid waxa la yiraahdaa BINS style macnaha BINS style ayaa qayb la yiraahdaa imtixaanka qaybna waxa la yiraahdaa Deutsche Test zu Fandaqa marka labadaas waxay ku kala duwan yihiin Deutsche Test zu Fandaqa markaad galayso imtixaankeeda oo ah imtixaanka BINS-ka muhiim waxa ah imtixaanka BINS-ka dadku baasi weydid asafay aad ku baasaysaa oo marka waxay anfacaysaa Deutsche Test zu Fandaqa in imtixaankeedu ay galaan dadka xataa asafay imtixaan aanan shahaadadu haysan marka asafay haddaad shahaadadu haysatid waxa ku anfacaysa waxay tahay in aad gashid imtixaanka Deutsche Teil marka Deutsche Test zu Fandaqa intaana ka gudbin markii imtixaankeeda aad galaysid muhiim waxa ah inaad haysatid lambarkaas oo ah markii ugu horeysay ee wadankan aad timid waxa jira integration course ay ku soo direen oo ah inaad luqadda badartid oo integration course aad sameeysid marka lambar aad lahayd lambarkaas waa ku muhiim lambarkaas hadaadan haysan tarmiin ama balan kama dhigan kartid marka laakiin haddii aad iskuul hore u dhigato kale oo iskuulkaas imtixaankaas aad ka galayso waa caadi laakiin haddii aad doonaysid inaad balan iskuul aad ka dhigatid oo imtixaankaas aad ka gashid muhiim waxa ah lambarkaas inaad haysatid lambarkaas markaad u geysid kadib ayaad balan ka dhigan kartaa markaad balantaas aad ka dhigatay kadib ayaa imtixaanka galaysaa marka haddii aad BINS shaaf gareyn weydid asafay shahaadadeeda ayaad helaysaa Deutsche Test zu Fandaqa waa midaas marka BINS style mid la yiraahdaa jirto BINS style-ka lagu sheegayo waa BINS oo kaliya marka BINS-tan Deutsche Test zu Fandaqa imtixaankeeda wuxuu uga duwan yahay BINS style-ka lagama rabo lambarkaas marka BINS imtixaankeeda hadaad shaafis gareyn weydid waa BINS oo kaliya marka sidaas horta marka ugu horeysa u kala ogow sidaas ayay u kala baxaan marka waxaa jira iskuulo balama laga dhigto adoora marka luqadii xataa aadan hore u soo dhigan haddii aad doonayso horta Deutsche Test zu Fandaqa oo imtixaankeeda hadaad doonayso oo BINS ah lambarkaas ayaa lagaga baahan yahay laakiin lambarkaas hadaad haysan waxa ku anfacay oo luqadda aad wax ka fahansantahay inaad gashid imtixaanka BINS style-ka inaad gashid ayaa aad kugu muhiim ah marka ayadoona lambarkaas laga rabin ayaad tagaysaa oo imtixaanka aad galaysaa marka dadka luqadda aad u yaqaano oo lambarkaas aanan haysan taas ayaa anfacaysa haddii aad degan tahay gobolada NRV oo kale oo aadan aqoon iskuul aad ballan ka dhigatid aniga ku haya way la soo xiriiri kartaa waxa jira in haddii imtixaanka BINS-ka aad ku dhacdid tusaalo kale imtixaanka BINS-ka wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood laakiin imtixaanka markaad galaysid laba qaybood waa dhageysi akhrin iyo qorid iyo macnaha ku hadlid marka imtixaanka laga yaabo laba qayb loo qaybiyaa dhageysiga iyo akhrinta iyo qoridda way isla socdaan ku hadalkana waa gaar haddii aad hoogan shaqaybin on listen aad ku dhacdid oo expression
aad macnaha baastid oo aad buundooyinkii laga raba aad keentid ama sidaas oo kale inspiration haddaad shaafis gareyn weydid oo aad ku dhacdid oo laakiin aad huuqin shaqaabil leesan aad markaasi aad ku shaafgaraysid sanad ayaad jaanis haysataa qayb ka mid a labada qaybood ee imtixaanka loo qaybiyey mid ka mid a haddaad ku dhacdid fursad adag ayaa haysataa oo midda kale aad ballan uga dhigan kartaa si aad markaas imtixaan kale u gashid marka imtixaaska mar kale haddaad ku dhacdo waa ku noqonaysa adiga hal sano oo fursada haysataa haddaba fursadahaas ayaa jira haddaad hore u ogeyn hadda ogow haddii aad hore ogeydna waad garanaysaa marka waxaan ku leeyahay haddii aad gobolada NRV oo kale ama nether section oo kale aad degan tahay oo kale oo aadan garanayn meel aad ka raasatid oo kale aniga way la soo xiriir kartaa qaybta commentiga waa igu reebi kartaa haddii aad garanaysidna ballan ka dhigo iskuulada ku dadaal in aad shaaf garaysid BINS qarash badan iyadoona kaaga bixin qaabkaas aan ku sheegay ayaad u sameynaysaa marka fursadaas ayaa jira haddaba ku dadaal in aad BINS aad heshid muuqaalka intaas ayaan kusoo gabgabaynayaa haddii aad ka faa'iiday oo aad aqoonkaaga kororto waxaan ku leeyahay dadka kale ee wadanka Jarmalka degan muuqaalkan gaarsiiyay WhatsApp-ka iyo meelaha kala duwan ee ay isticmaalaan ugu dir si ay uga faa'iidaystaan haddaba YouTube-kaaga kusoo dhawow YouTube-ka subscribe inoo saar intaan muuqaalo kale oo arrimaha Jarmalka ku saabsan aan ku kulmi doono waxay ka tagay sidaas iyo nabadgelyo